السلام عليكم سود ودا صحابتا وكحرن يوتيوب channel kayga makaraan yare sida wada ogtihiin waxaa jiro ciyaar weyn oo final ah oo u dhaxayso Soomaaliya iyo South Sudan sida wada ogtihiin kulanka maanta waxaa daawanayo wasiirka sportska dhalinyarada joogo Sare Xamad Barra joogo saaxiibkay Axmed Wacan oo studio oo ugu sokan ayaan ka bilaabayaa Axmed soo dhawow bal ka waran maanta Soomaaliya iyo South Sudan kulanka u dhaxeeyo bariga iyo bartamaha Afrika maxaad filanaysaa maxaad is leedahay Axmedow soo dhawow Axmedow waa maasan tahay ciyaartu waxay u dhaxaysaa Soomaaliya iyo South Sudan Soomaaliya galabta guul ay gaari doonta ayna gaari kartaa markaad fiirisid Ethiopia oo ay ku badiyeen dadka Soomaaliyeed bal maanta ka waran dareenkaaga iyo shucuurtaada sidee waaye maxaad isbedel maxaad dareemaysaa maxaad dhigi kartaa maanta dareenkaaga iyo shucuurtaada maxaad dhigi kartaa dabcan keligii maahan waa ummadda Soomaaliyeed oo dhan maanta Soomaaliya dhammaan xitaa madaxda dadka maaragtay ardayda dhalinyarada waalidiinta Soomaaliyeed dhammaan waxay filanayaan in Soomaaliya ay guuleysato oo kulankan markay ay South Sudan garaacdo oo koobkana dabcan laga soo dejiyo magaalada Muqdisho maanta waxaan ahay Soomaali fanis waliba waxaan rabaa inaan xulkayga guuleysto waxaan ugu badanahay hal gool ibr haddaan saadaal ciyaaraha u dhaxay maanta Soomaaliya iyo South Sudan oo ah finalka u dambeeyay waxaan rajaynayaa in Soomaaliya ay koobka insha Allah ay noo soo qaado daraad maadaama Uganda ku soo badanay rigoor ku soo garaan maanta waxaan rajaynayaa South Sudan 3-0 ku garaacno koobka Soomaaliya qaado insha Allah